السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أنا جلس عتام ورباهنتي تشيس ميديا برنامج كان وحن كسو قادم دونا برنامج ساك إنه سوق لنا أو أحد ديل كي هرجيسة كدعي نيكي عن كل رجلها نمك هلاي إمداد الخادين والله سواق قطعي وأنا بالشدة وسوق بني مركب وحن دلوا ذا جيا في باكي نجاس صون نقضي أنا جس حافظ هان يا أنا جلفت جيجو إلها أنا كوكل صون عني مركب كسو حجني iyo in aanu ka raali gelinayno beesha la sheegay in uu ninkani ka soo jeedo oo aan anaga naga bilaabmin balse laakiin meeshii aanu ka keenay iyo meeshii aanu ku kalsoonaanay warkan ka yimi aanu cadeymaheedii halkan soo dhigi doono waayahay waxa markaa aynu hore ugu soconaynaa barnaamijkeena aragtidaada kaga qayb qaadanaysaa subscribe hadana hore ila joogin YouTube-ka horta ugu horeyn koodii barkiya 5 mir ninka soo geliyay barnaamijka Mubaarak Koodsaar baa leeyahay waayahay ninkaasi markuu barnaamijka soo geliyay waa kan qoraalkiisii isagoo dhameystiran barnaamijka sida faahfaahsan buu sheegay ee aan ugu soo gudbinay ka soco waayahay ninka labaad ee soo geliyay isla 2:19 daqiiqo waxa la yiraahdaa Cabdishakuur page-kiisu waa kan qoraalka dhameystiran ee uu soo qoray ee aanu anagu laftigaygu wax ku soo gudbinay aanu ka soo xignay sidan ay ahayd muuqaalana waa idin soo wadaa hayga degdegina page-ka ninkii akhrisan karaya isaga akhrisanaya ninka magaca beesha iyo ninkan xogta dhameyska tiran ka keenay ninkan waxa iyadoo kii horeba ka keenay haddana kii hore kuma na kalsoonaan xog dhameystiran buu ka keenay waqtiga markaa uu soo gudbinaya 2:19 daqiiqo bay ahayd sidoo kale isna waxa soo geliyay page-kiisa ninkan oo isna magaciisa la yiraahdo Bashiir Shaaciye wuxuu soo geliyay qaabka aanu barnaamijku soo gudbinay qaab la mid ah waxa kale oo markaa jirta qabiilkan iyo arrimahan uu ku saabsan yahay ninkan information-ka cid ka bixisay horta waa nimankan waxa markaa anagu aanu soo gudbinay in aanu xog kalena ka doono xilligaas oo aan no suuro gelin in aanu la xiriirno saldhigyada ama ciidamada ama maxaa sheegayay saxaafadaha ka shaqeeya aagaga waxa markaa jirtay in aanu hordhac ka dhignay warkan qaabka information looga soo bixiyana uga bixinay ugu horeyn horta anigu shakhsiyan waxaan ka raali gelinayaa beesha Gumbuur ama beesha Habar Yoonis haddii xitaa ay jirto oo wararka aynu sugaynaa ay xaqiijin doonaan in aan ku soo qaado barnaamijkan oo halkan keeno anigoo barnaamijyo kale haddana ka soo xiganaya waxa maanta igaga soo falceliyay dad fara badan waxaana loo arkay in aan anigu beela isku dirayo haddana waxa weeye iyadoo ay sidaaba tahay raaligelin buuxda baan halkan uga dirayaa waxa markaa jirta gacan ku dhiig leh horta marka hore waa gacan ku dhiig leh haddii la hayo iyo haddaan la qabanba waxaana markaa degdeg naga soo dhex galay arrinkan markii information ugu yaraan 3-4 meelood aanu ka helay saxaafada intaanu screenshot ka qaadanay intaana ka qaadan wayslakaad haddaba kuwo muuqaal ah oo soo geliyay ayaan idinka daba geynaya bal halkanna waxay la daawan doontaan ninkan muuqaalka ku soo geliyay isagana way soo daawan doonaa maanta waxaynu ka hadlaynaa gacan ku dhiiglihii ka geystay dilka magaalada Hargeysa ee gacanta lagu soo dhigay lagana soo qabtay magaalada Dararweyn waayahay qaybaha kalena way idin soo deynaya sababtoo tahay muuqaalka inta ka badan wana lagu qabsanaya waxa markaa aynu idin sheegaya ama isdul taagaya marka hore saxaafadda waxa la yiraahdo waxa marka hore horta iyadu meel walba goobjoog kama aha waxa ay wax ka soo xigataa 3 qaab baa jira mar waxa weeye meelo isu marxaat furay oo ugu yaraan 4 iyo 3 iyo wixii la mid ah ayuu ku kalsoonaan karaa oo warka ka soo xigan karaa xalay toorana in aan qoraalada noocana soo dhigay oo barnaamijka soo raaciyay way jirtay oo ninkii akhrisan karayay uu akhrisanayay laakiin barnaamijka qoraalada noocana waa soo raaciyay saxaafaddu waxa labaad oo ay wax ku doontaa waxa weeye meel ay goobjoog ka tahay oo ay tagtay oo dabadeetana ay soo xaqiijisay arrimaha ka jiray qodobka saddexaad ay wax ku baadi doontaa waxa weeye qof goobjoog ka ah oo ay la xiriiday oo lagu kalsoonaan karo
ama warkan usoo tabiyey oo lagu kalsoonaan karo oo yidhaaha goobjoog baan ka ah saddexdaa qaab ayay wax u soo gudbisaa saxaafaddu saddexda qayb ka mida ayaan horta marka hore usoo gudbiyey barnaamijkan balse laakiin cid kasta oo dhibsatay waa laga raali gelinayaa arrinkanna waxa weeye arrin horta somaliland ku wada faraxday qodobka labaad ee aynu soo gudbinayaa waxa weeye arrintan ilaa intaan idinka maqnayn waa ka xog doonnay cid beenisay oo tiri waa beenna maana arag cid macnaha maanta aan ka sugaynay maxaan sheegayay in ay xaqiijiyaan oo ahayd laamaha ammaanka wasaaradda arrimaha gudaha wixii la mid ah in ay information ka bixiyaan may suuro gelin oo waxa weeye haddii ay jirtiyo haddaanay jirinba waa wax maqan waxaana dhici karta in ay haddaba shaaciyaan waad ku arki doontaan biijka booliiska waayahay haddaba waxaynu halkaa kaga imanaynaa barnaamijka feedback uu nagu soo celiyey aanu dib uga soo duubnay in dadka laftigiisu ay maxaan sheegayay ku kalsoonaan karaan arrimaha aanu soo gudbinno inay xaqiiqo yihiin xaqiiqadana waxa weeye meelaha laga keeno haddaba waxa weeye qofku marka uu arrimaha noocan oo kala gudbinayo waxa uu raaciyaa xaqiiqooyinkana waa raaciyey oo qoraaladii waa soo dhigay haddana dad badan waxay u haystaan inaan cid isku dirayo isku dirka anigu maanta shisheeye sokeeyaba qofka halkan igala socdaa waa sugkay mid wixii aan ka ogahay baan halkan uga sheegaya ama wixii warbaahinaha aan ka soo qabto ama wixii aan xaqiiqo anigu ku raadiyey ku soo helo ama wixii cid goobjooga aan kala kulmo arrinkaa markaa waxaynu ku soo gebagabeynaynaa muuqaalkii oon idinku celinayo ninkaa laftigiisu muuqaalka soo geliyey xaqiiqada inuu ka sheegay beesha iyo ninka meesha lagu qabtay iyo waxa uu qabanayay falalka uu geystay arrimaha isagu aad muddo inuu ka xog intayada ka badanba ka hayay ninkaa in baaritaan ay ku hayeen ciidanka booliska in baaritaankiisii hordhiciisii in la helay iyo xalay waxa laga soo qabtay darar weyne weliba ninkaa waxaynu kala garan la'nahay ee weliba baaritaanka la sii wado inuu ahaa ciidanka halkaa hore u joogay tababarka ugu jiray iyo kuwii dambe inuu ahaa dan ninkaa haddaba dhalashadiisana waa nin habar yoonisa ee dilka u geystay labada inamood sida baaritaanka wixii ka soo baxay hordhac aynu ku hayno saaka 5tii waa beriga marka baaritaanka lagu bilaabay in ninkan gacan saddexaad ee arrinka ay ku jirto asagana ku shaqaysanaysay ka ahayn baaritaankii hordhaca ayaynu ku haynaa la oran karo waa garxajis ama waxa weeyaan waa habar yoonis mid toona lama oran karo arrinka ninka uu geystay dilka ah inuu ku salaysnayn qabiil marka waxaan roonayaa shacabka inay ogaadaan taa horta waa mid muhiim ah waayo qofku markuu futada la galo argagixiso aynu ognahay wareysigii laga qaadanay uu ka mid yahay in ay joogaan gudaha Soomaaliland qaar kale ee loo tababarayo madax jabis waayahay halka waxaan kaga imanaynaa barnaamijka markaa waxaan bulshada u sheegayaa ama haddeerna ugu celinayaa arrinkaasi waa arrin dawladda ku maqan xaqiiqadeedana laga rabo sababtoo tahay saxaafadaha anagu intaan aan idin soo bandhignay waa ka badan yihiin inta soo gelisay haddana waxa weeye waxyaabaha macnaha la isku dhibsado inaanu dadka ka raali gelino waa waxyaabaha aanu anagu sumcadayda wax u dhimi kara marka arrimaha feedback igaga soo noqday ee macnaha beela ahaan kuwa ku faraxsan oo ay wareysto yiraaha ka waran maxad war ka haysaa iyo kuwa yiraaha maxad dadka isugu diraysaa iyo kuwa yiraaha maxaan sheegay horta marka waxaan idin sheegayaa anigu beeshan meesha aan ka keenay iyo nin cid macluumaadka soo gudbisay iyagoo dhameystiran wanigeed la wadaagay kuwa kalena waa jiraan oo iyana soo geliyay marka waxaynu ka warsugaynaa dawladda xaqiiqooyinka waxa ku saabsan ay ka hayso sababtu tahay haddii aanay arrinkan waxba ka jirin iyaga mar hore beenin lahaa horaba wadu ogeydeen maalin lagu sheegay dooxa Hargeysa in nin lagu dilay oo cid lagu sheegay in isla markiiba ciidanka booliisku ka hadlay oo yiraahdeen waxa kama jiraan warka haddaba marka warku intaynu hayno waa khasabday inuu ka badan karo cidda aynu ka warsugaynay u daba fadhinaana waxa weeye ilaa ay fasaxaan iyagu wax dambe
oo aanu halkan kusoo gudbin karnaa ma jirto ama xogaa waxa markaa laakiin aan anigu ka raali gelinayaa beesha aan markaa carabka ku dhuftay oo aanan anigu samayn oo soo gelin laakiin cidda soo gelisay iyo meesha ay ka isticmaalaan baraha bulshada intaba aan idinla wadaagay waan idin salaamayaa dhammaantiin cafi iyo musaamax baan leeyahay ciddii dhibsatay barnaamijka ninka gacan ku dhiglaha lagu soo qabtay ama beesha lagu sheegay ciddii dhibsatay dhammaantood oo ka raali gelinayna iyo dhammaan bulshada Soomaaliland waxay dhibsatayba waynu wada jecelahay in la soo qabto ciddu doonana ha noqdo waa khasab inuu cid ka soo jeedo laakiin ciddu doona ha noqdo waa khasab inaynu inagu dhammaanteen raadinayno ummadda reer Soomaaliland dhammaantood way ku wada farxeen waan ogeyn haddana waxa weeye warkii inaanu ka yara degdegnay oo kale ayay u ekaatay